xilalka kula kala wareegayeen agaasimaha cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland iyo agaasimihii hore wasaaraddaas ayaa maanta lagu qabtay isla wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland iyadoo maanta munaasabadaas ay labada agaasime xilalka kula kala wareegayeen ay ahayd mid nooceed oo kala aan dalka loogu arago labada agaasime ay maanta iyagu ay xilalka la kala wareegeen iyadoo shaqadii uu lahaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo ahayd in isagu xilalkaasi u kala wareejiyo uu ka maqnaa wasaaraddaasi ugu horreyn waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimihii hore wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Axmed Dalal Faarax oo isagu halkaasi ku soo bandhigay waxqabadyadii kala duwan ay u qabsamay muddadii uu xilka hayay isla markaana halkaasi ku soo bandhigay warbixin ka hadlaysa waxqabadyadii uu qabsamay muddadii uu xilkaasi agaasinimada u hayay Axmed Dalal Faarax agaasimihii hore wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in 40 mashruuc ay ku baxday lacag cadeedkeedu dhan yahay 40 milyan oo dollar ay geliyeen labada madaar ee caalamiga ee Hargeysa iyo Berbera iyo madaarka magaalada Burco iyadoo mashruucyadaasina qaarna ay dhamaadeen buu yiri qaar kalena ay ilaa hadeer tolay socdaan agaasimihii hore wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in uu la shaqeyn doono agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu maanta xilkii uu ku wareejiyo wixii talo iyo tusaale uga soo baxday agaasimaha cusubna uu ku kordhin doono waanan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha inuu magacaabay qof aan ku cusbayn wasaaradda oo ah shaqaalaha dadkii ugu firfircoonaa ee munaasabadan higsanayay iyo mid ka sareysaba oo ah walaalkay Sayid Umar Abdullaahi anu magaca qalinna maanta saaban bartay jaraydka ugu horeysay qalinle in naanaystaada la ilaahay qalinlena lagu naanayso waxaanan ilaahay uga rajaynayaa in uu u fududeeyo muddada aan xilka hayay saddexda madaar ee labada madaar ee caalamiga ah ka Burco 40 mashruuc oo xagga internationalka iyo xagga wasaaradda gudaheeda ah ayaanu ka fulinay oo qadar ahaan lacag ahaan aanu maleynayay ilaa 35 milyan ilaa 40 milyan ay yihiin sida awgeed qaar way dhamaadeen intooda badani qaar way socdaan qaarna way soo socdaan sidoo kale isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Umar Abdullaahi Aadan Qalinle oo u mahad celiyay agaasimihii hore wasaaraddaasi kuna amaanay muddadii uu shaqadaasi u soo hayay iyo halka uu soo gaarsiiyay igu ahaa xagga shaqada in badan aan soo wada shaqaynay wax dhibana aan kala tirsan marnaba runtii wasaaradani waa wasaarad saddex sano ugu dambeeyay aan ka soo hayay xilal muhiim ah oo ah madaarada وزارة هوشيدا إن بدن مشاريع الصعوطة يصير الصعوطان بقى آد وجود وور بدن كهيو ما هو وزارة يقول عصوب وحن آد هنتي وجود كرسون هاي إن أولي هذا سفي عن وسيود تونه سيدة من وزارة دني marka loo eego wasaaradda Jamhuuriyadda Somaliland oo wasaaradda guuleysatay gabagabadiina labada agaasime ayaa munaasabadaasi ku kala saaciday xil wareejinta labada agaasime iyadoo munaasabadaas ay maanta xilalka kula kala wareeg agaasimaha cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland iyo agaasimihii hore ay ahayd mid nooceed oo kala aan dalka hore uga dhicin oo iyadu ka diwaneed munaasabadihii dhigeeda ahaa ee ka horeeyay iyadoo maantana haba yaraatay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland aanu ka soo qayb galin munaasabadaasi xil wareejinta xilalka kula kala wareegeen labada agaasime ee wasaaraddaasi iyadoo madaxweynaha Somaliland war-saxaafadeedku xilka uu kaga qaaday agaasimihii hore wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Axmed Dalal Faarax uu wasiirka ku amray inuu labada agaasime uu xilalka u kala wareejiyo hadalka madaxweynahuna uu maanta noqday halbacaad lagu lisay oo iyagu maanta labada agaasime ay xilalka kala wareejisteen sidoo kale warar dheeraad ah oo helay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV oo sheegayay in wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Maxamed Xaashi Cabdi xilkiisii uu ku ilaaway kumilan uu ku dhaxmilmay siyaasiyiinta ku hirdamaysa xisbiga muxaafidka ee talada dalkan hayay kulmiye iyo iska joog uu iska ag joogo mar walba qasriga madaxtooyada ee Somaliland taasina ay maanta keentay in mid ka mid ah shaqooyinkii wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland uu qaranka u hayay ay dayacanto Cabdiraxmaan